madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin ayaa si diiran qasriga madaxtooyada ugu qaabilay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si weyn ugu mahadnaqay guud ahaanba shacbiga ku dhaqan gobolada dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana madaxweynuhu si gaar ah ugu mahadnaqay gobolada Hargeysa iyo Saaxil sidii qiimaha lahayd ee ay u soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin. dhammaan reer Soomaaliland dhammaan salaam baad naga gaarsiinaysan sida qiimaha lagu soo dhaweeyay. ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa isagoo caafimaad qaba inuu ilaahay noo soo celiyo. sidoo kale badi golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhamaantood si diiran ugu mahadnaqay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweynta qiimaha lahayd ee ay u muujiyeen jacaylka wadaniyadeed ee ay u hayaan madaxweynahooda iyo madaxweyne ku-xigeenkooda iyo dhamaanba madaxda dalkooda. waxaa kale oo ay wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ay muujiyeen in guda iyo dibadba shacbiga Soomaaliland ay ugu farxeen madaxweyne ku-xigeenkooda isagoo caafimaad qaba ku soo guriya noqday dalkiisii hooye ilaahayna ay uga baryayaan inuu caafimaad iyo cimri dherer uu ku waaro. geesta kalena mas-uuliyiinta xisbiga talada haye ee Udub ayaa iyaguna waxa ay ku amaaneen taageerayaasha xisbiga talada haye ee Udub sida weyn ee aanay ugu kala hadhin soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Yuusuf Yaasiin.